بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaan rabaa inaan maanta idin wadaago duco yaro kooban alfaadeedu aad kooban tahay xajmiga intay ku qorantay aad kooban yihiin qof kastoo naga mid ah ee u fududay inuu xifdiyo sagiiran aw kabiiran laakiin waxa intaa dheer waxa ducadan ku soo oray fadli aad u fara badan iyo miisaan iyo ajar iyo xasanaad laga helayo oo ducadan xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu noogu sheegay ducada yaro kooban waxa weeyaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar afarta kelmadood ayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay inay yihiin afarta kelmadood inay yihiin kalimaadka afka bilaadanka ka soo baxay kuwa loogu jecel yahay waxaan hadal ku soo baxayna hadalka afkiina ka soo baxaya kalimaadka loogu jecel yahay bal waxa inta dheer inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhahay addunya wama fiha ay ka khayr badin adduunka iyo waxa joogaba in afarta kelmadood ay ka khayr badin wala fadliga weyniga ducadan ku soo oray waxa kamid ah annaha maghfiratu dhunub in dambiyada lagu dhaafay maanta qofkaasi waa ogiyay dambigu galiyo intuu leeyahay xaaladiina waa ogiyay marka maadaama lagu dhahay afarta kelmadood oo kaliya ayaa waxa sabab u noqon kara in dunuubtaada lagu dhaafo maanta wax nooga baahi badan walaalayaal ma jiraan fadliga ducada nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay waxa kamid ah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay maalinta qiyaamay la qaaway la qatay qofka uu leeyahay nafteeda uu leeyahay nafteeda ii badbaadiye ee amalka bilaadanka la miisaamiyo kiisa xun iyo kiisa wanaagsan maalinka amalka wanaagsan bi cusleynaysa kor soo qaas kamid ah walaalayaal inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku jeclaanayo ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku jeclaanaya afarta kelmadood aad ku celiso aad dhahdii subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وحكى كمid ah walaalayaal ducadan fadligii meesada gaarka ay leedahay annaha ghirasul janna in jannada lagu beeranayo nidii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay halkiiga muslimka ah kalimaadkan yar oo kooban xifdigoodu fudud yahay qofka soo u fudud waxa la yiri fadli aad farmo ku soo oray maxaa ka qadinay fadliga iyo khayrka iyo wanaaga ku soo arooray iyadoo waqti badan iyo juhdi badan iyo xifdi badan aan ka qaadanayn kaliya dhadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ayaa rasuulkeen maxamed sallallahu alayhi wasallam baa kullee waa kalimaadka ilaahay ugu jeceliyay waa kalimaadka afqafka bilaadanka ka soo baxa ugu fadliga badan la weeyaan waa kalimaadka ku sabab u noqon kara inaad jannada gashin waa kalimaadka مغفرة الذنوب ذنوب تذا لقول عافي كرو وكلمات كولول كإيه وربهار كمان تلقون نولي كاك حين كرا مركز سوء الحال على أقشي مركز سوء المرقوتي مركز سوء دباتك وقول دعوة سبحان الله والحمد لله أدي ما ده سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله أنا ده كلمة حق الله سينا يا سبحان الله إلهي بحبان كالنسان والحمد لله ما هذا الإلهي بسكله ولا إله إلا الله إله مجران إلا الله إلهي مويا لا حق وعبد موياني إله كلمة مجرى والله أكبر إلهي مويا كلمات كما كان معاشرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حق وح الله وح مروه كويسة وح دباته كويسة وح أنهم كرا إله سبحانه وتعالى كحي مركا ولا ليال ولا لك خير كان لجارسي سيشار قرية النبي صلى الله عليه وسلم وكيلها قف كسوح نفتي سلة علي ولا الكيس مسلم كان لا تعالى ولا الله هذا مسلمين تجارسي سيد خير كوفافو تدبن وقفة يديسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.